aynu ku bilownay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. doorashadana waxaa ka soo qayb galay oo u codeynayay 147 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi. lafta gareen ayaa hadaba isagu waxa uu helay 101 codadkii halkaasi laga qaaday. guushuna waxa ku raacday wareegii koowaad ee codeynta, waxaana kaalinta labaad galay Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo isaguna helay 22 cod. doorashada waxaa ku tartamay baa la leeyahay 5 musharax oo iyagu waxaana ka maqnaa oo kaliya Mukhtaar Robow oo kamid ahaa musharaxiinta, balse waxaa la xiray Khamiistii la soo dhaafay. natiijadan waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha gudida doorashada. Aadan Maxamed Nuur Saransoor 22 helay cod. Ibrahim Macalin Nuur 5 cod helay. Xuseen Usmaan Xuseen 2 cod helay. Sayid Ahmed Sheekh Daahir 4 cod helay. waxaa xumaaday 13 cod. Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen 101 cod ayuu helay. waxaa ku guuleystay Cabdicasiis Xasan lafta gareen waa madaxweynaha labaad ee Koonfur Galbeed. madaxweynaha la doortay lafta gareen ayaa waxaa horyaala hadaba inuu xal u helo caqabadaha amniga, dhibaatooyinka dhanka nolosha ah iyo inuu xal u helo waliba khilaafaadka ay ka mid tahay midkii rabshaduhu sababay ee xariga Robow. kadib guushiisa ayaa uu sidan sheegay madaxweynaha cusub. si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulligii aan tartanay, musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday. ayagana waa u mahadcelinayaa shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal ah u gudateen. waan kaga mahadcelinayaa madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen. ilaahay idankiisa adinkana aad ila shaqayn doontaan oo isku garab istaagi doono wada shaqayn sida Koonfur Galbeed marxaladihii tirada badnaa oo sheegnay ku jirtay looga bixi. taariikhda madaxweynaha la doortay lafta gareen waxaad ka heli kartaa ka akhrisan kartaa bogga bbcsomali.com. haddaba sidee buu caqabadahan horyaalla uga gudbi karayaa madaxweynaha? waxaan khadka Muqdisho toos ugu jira Maxamed Cali Axmed oo loo yaqaano Kalay oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida. haddii aynu eegno ku soo dhawo Maxamed Kalay BBC Somali. waxaad moodaa khadku inuu naga baxbaxayo. maxamed waan ku arkaa. maxamed, doorashadan sidee baad u aragtaa ka dhacday Koonfur Galbeed? bismillaahi raxmaani raxiim. horta aad baan idinka mahadcelinayaa xiriirka aad la soo samayseen. runtii doorashadii maantay inkastoo muddo dhowr jeer dib u dhacday, maanta ayay hirgashay. sida aad adinkuba sheegteen waxaa ku guuleystay Cabdicasiis lafta gareen. marka Cabdicasiis lafta gareen ha guuleysto, laakiin hawlo badan ayaa horyaala oo la rabo inuu wax ka qabto. waan gartay Maxamed Kalay, hawlahaasi waynu u dhaadhacaynaaba. hawlahaasi maxay kula tahay madaxweynaha cusub ee la doortay in uu siiyo muhiimadda? waynu ognahay xaggii amniga, waynu ognahay xaggii nolosha, waynu ognahay xaggii muranka siyaasadeed. bidaan horta waad la socotaa arrintan mudday rafanaysay, muddo 3 jeerana dibaa loo dhigay, laakiin ilaahay maajis maantay dhammaatay oo 4 bisha 19 ahayd. madaxweynaha cusub waxaa horyaala in uu dadkii walaalka ahaa kala irdhoobay oo dhibaatada dhex martay. dhimashaa jirtay, dhaawac baa jiray, xildhibaan Koonfur Galbeed baa ku dhintay, siyaasad ahaan waa la isqalbi gaaray. marka waxaa loo baahan yahay 1 inuu dib u heshiisiin sameeyo, 2 inuu dadkii cadaalad u sameeyo, dadkii kala duday inuu isku soo celiyo. marka madaxweynaha hawl badan baa u taalo oo la rabo dadkaas oo kala fikriga ahaa inuu isu keeno oo uu mideeyo si maamulkiisa u noqdo maamul oo dan u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. waan gartay Maxamed Kalay, waad og tahay Baydhabo iyo Muqdisho looma kala socdo. magaalooyin badan oo Koonfur Galbeed go'doon bay ku jiraan. arrimahaas maxay kula tahay inuu madaxweynuhu ka qaban karayo xagga amniga ah ee degdega ah? runtii waa saa sheegtay oo dalka waxaa lagu kala socdaa diyaarado, jidadkii degmooyinku waa kala xiran yihiin. waxaa ugu daran Muqdisho iyo Baydhabo jidka ah, jidkaasoo weliba dhinacana Ethiopia ka galo, dhinacana Kenya ka gala. marka maadaama madaxweyne Cabdicasiis lagu xaglinaayo inuu dowladda Soomaaliya oo gacan saar la leeyahay, waa inuu dadkan oo jidka taagan oo dadka dhiba oo canshuuro ka qaado oo ilaa 200 oo baabuur meesha ku hayo, mararka qaarkood uu dil ka dhaco,
inuu dowladda la kaashado oo uu mataqaanaa ciidamadaasi ka kaxeeyo jidka magaalooyinka jidadka xiran uu isu furo waxqabad iyo horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha inuu ka shaqeeyo laakiin waxa ugu muhiimsan dadkii walaalaha ahaa oo kala irdhoobay oo kala siyaasadda ahaa inuu mideeyo isu keeno nabadgelyadu wax ka qabto cadaalad uu ku dhaqo sida hadda uu khudbadiisa ku sheegay oo ahayd kow nabadgelyo laba cadaalad inuu arrintaasi uu ka dhabeeyo oo hadhow in lagula xisaabtamo arrinka waxaad ku celcelisay in dadka la mideeyo waad ogtahay khilaaf siyaasadeed baa jira mid musharaxiinta ka mid ah ayaa lasoo xidhay robow oo ka qaybgeli lahaa doorashada sidee bay kula tahay sida ugu habboon ee loo xallin karayo wixii khilaafaad ee siyaasiya jira oo runtii ahayd inaad ogeed baydhabo dee banaanbaxyadii ka dhacay iyo howlaha badan ee taagan dib u heshiisiin inuu sameeyo oo ah in dadkii oo ka soo horjeeda siyaasaddiisa ilaa isaga waxaa lagu xaglinayay in ay dowladda wadato maadaama uu deegaanka u dhashay oo dadkii iyo deegaankii uu kala yaqaano hawsha ugu muhiimsan waa midayn dib u heshiisiin cadaalad u falid iyo dadkii ka sii jeeda naftirkooda inuu soo jiito oo uu garab ka dhigto ilaan keligiis wax ma samayn kare isaga madax keliya waaye dad oo mataqaanaa horumarka iyo cadaaladda ka shaqeeyana uu helo kaasi wuxuu ahaa maxamed clay oo ka faalooda siyaasadda soomaalida oo iga warramaya doorashada baydhabo ka dhacday